guushu waxay u baahan tahay dadaal, waxay u baahan tahay rafaad, waxay u baahan tahay inaad guntiga dhexda ka xidhatid, inaad ogaatid maalimaha nolosha adduunku waa maalimo kooban. waxa laga doonayo waa wax weyn adduun iyo aakhiro. waxa laga doonayo wax soka ma aha, waa wax weyn inaad dhaqaaqdid, ficilina la timaadid. kuma lihi seef qaado oo orod, kuma lihi meelaha boodbood, qorshe dhigo. waxaad u dhiganaysid waa inuu noqdo wax weyn, waa inaad dhaqaaqdid, waa inaad ficil la timaadid. laakiin inaad meel fadhidid waad ku uri. biyahu hadday dhaqaaqi waayaan oo meel ay fadhiyaan way uraan. shimbarka quruxda bana ee bulbulka la yidhaahdo waxay yidhaahdaan haddii la xidho qafas waa shimbir qurux badan, laakiin meel baa lagu xidhay wuu dhimanayaa. libaaxu muxuu u noqday maxaa loo yidhaahdaa waa boqorka kaynta. dhaqaaq buu la yimid oo kaynta gebigeygii buu la yimid. adiguna haddaad dhaqaaqi weydid waad uri, haddaad dhaqaaqi weydid qiimo yeelani maysid, waad dhiman. haddaad dhaqaaqi weydid waad dulloobi. bal libaax soo qaado xidh u dulloobi, meeshaasu ku meeraysan. libaax baad waad ka weyn tahay libaax. waxaad tahay qof ilaahay uu ku karaameeyey. sidaa awgeed haddaad isku xidhid oo dhaqaaqi weydid qiimo yeelani maysid, waa dulloobi. dhaqaaq waxaa la yidhaahdaa faraska maxay boqoradii iyo dadka lacagta u koraan? wuu dhaqsaday, wuu dhaqaaqo, xoog buu orday. dameerka yaa kora? miskiinka iyo ka addoonka ay yidhaahdaan ayaa kora. dee doqon markuu noqday kaasaa qaata. laakiin inaad faras noqotid ayaa loo baahan yahay. ilaahay waxa uu yidhi وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. qofka waxa u sugan uu Ilaahay yiri waxa uu leeyahay wuxuu u orday uu u gucleeyay uu ku dadaalay waxaas uu leeyahay. addunya aakhiro waxaad u orodad ee u dadaashid ee qorshaysid ee fikirtid ee habeen iyo dharaar aad u soo jeedid xulumkaaga noqdo kaasaad gaadhaysaa. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ابن بطوطة waxa uu doonaya caalamka inuu ogaado 30 sano adduunka ku wareegay. kitaabkiisii buu qoray, wax uu ka tagay male, wax walba ayuu ku qoray. wuxuu noqday xadiith ad-dahr, waxa laga sheekeeyay adduunka ayuu noqday. cajiib buu noqday. waa markuu dhaqaaqay ayuu sidaa noqday. adigu caajiskan muxuu yahay ku saaran? wahsigani muxuu yahay? hurdadan badan maxay tahay? seexo soo toos, seexo soo toos. waad isbedeli kartaa, waxna waad bedeli kartaa. daqiiqada quraad waxaad tasbiixsan kartaa kun tasbiixo halka daqiiqo. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تري بقول تسبيح أي الله يمن كرتاه. waxay yidhaahdaan daqiiqada quraad صفحة قرآنه ayaad akhriyi kartaa. سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 jeer ayaad ku akhriyi kartaa halka daqiiqo. waqti buu Ilaahay ku siiyey, waad shaqaysan kartaa. shaqadu ceeb ma aha, dadaalku ceeb ma aha, ninnimo weeyaan. wax la isku caaye ma aha. wuxuu noqo shaqayso. nabiyullaahi idriis calayhi salaam, nebi idriis kaana khayaatan, dawaar lu ahaa. nebi idriis dharku toli jiray, waa nebi ilaah. nabiyullaahi daawuud calayhi salaam xadaad buu ahaa. biraha biratume ayuu ahaa. nabiyullaahi muusa adhi jiri ayuu ahaa.
nebi maxamed muxuu ahaa adhi jirana wuu noqday ganacsina wuu galo wax buu iibin jiray nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam imaam axmed ibnu xambal dukaan qofi uu leeyahu u iibin jiray uu ka shaqayn jiray haddii aad doonaysid inaad wax qabatid himmad sare aad leedahay wax waad qaban kartaa laakiin daciif haddaad ka tahay iimaanka qiimo ma lihid waxay yidhaahdaan waidaa kaanat الnufuusu kibaaran tacibat fii muraadiha alأjsaamu naftu hadday weyn tahay waxa kugu jira himmada kugu jirta ay weyn tahay waxaa daalaya jidhkaagaa daalaya lanna waxa kugu jira ayaa wax weyna mooteerka sidid ayaa mooteer weyna waad ordaysaa waad rafaadaysaa waad fikiraysaa waxbaad akhriyaysaa waxbaad qoraysaa qorsho badan baad wadaa jidhkii baa daalaya lannahu naftaada ayaa meel saran doonays akhi shalay way tagtay ha ka fikirin shalay ee ku dhaafto berina qacanta kuma haysid beri toole waa hayb oo wax maqan waxaad qacanta ku haysid ma aha inaad noolaan inaad jiri inaad dhimani qacanta kuguma jirto waa hayb waxaad qacanta ku haysaa waa maanta maalinka aad joogtid weeyaan insaankuna saddexdaas u dhaxeeya maalin tagtay oo qacantiisa aan ku jirin iyo maalin soo socota oo qacantiisa aan ku jirin iyo maalinkaa u joogo maalinkaa aad joogtid baad leedahay adow maalinkaasaa la rabaa inaad ka fikirtid inaad qorshaysid inaad nidaamisid laxdada aad ku jirtid inaad ogaatay wax kaa tegey male wax kaa tegey male waxaad la walbahaartid oo la fikirtid ma jiro taa aad ku jirtid daqiiqada aad ku jirtid saacadda aad ku jirtid ka fikir sidaa u nidaamin lahayd sidaad wakhtigaaga uga faa'iidaysan lahayd